halkan martida maanta aan ku martiqaadnay inay nagala qayb galaan xisbiyada kale aan ku martiqaadnay inay nagala qayb galaan madashan oo halkan jooga dhammaan ka soo ganacsatada ururada bulshada rayidka dhalinyarada iyo haweenka odayaasha dhaqanka canshuur bixiyaasha ururka canshuur bixiyaasha dulman oo yiri si gaar ah annaga hana la kaga fariinteena loo gudbiyo oo halkan ayaguna jooga dhammaan ka soo qaybgalayaasha ajiibay maanta wicitaankeenii inay nagala soo qaybgalaan furitaanka daahfurka furitaanka madashan la aasaasay bishii hadda ugu dambeysay kuna soo korortay saaxada siyaasadda Soomaaliya dhammaantiin waa salaamantiin salaan kadib runtii maantay waa maalin taariikhi ah oo xisbiyo dalka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin in la sii kala qaybsamayo oo labadii wada shaqaynaysay aysan hadda isku aragti yani ama khilaaf dhexdooda la dhigayo ayadoo taasi jirto in xisbiyo siyaasadeed ay gartaan inay ku bahoobaan oo madal ay ku aruuriyaan afkaartooda siyaasadeed ee dalka lagu dhisayo runtii taasi waa taariikhda Soomaaliya wax ugub ku ah oo cusub weeye oo u baahan in la bogaadiyo madashan asaasideedu waxay ku soo aaday marxalad xasaasi ah iyo kala goys ay tahay inay Soomaaliya qaadato jihadii ay aadi lahayd oo siyaasadeed taasi marka waxay keenaysaa waxay ku soo aaday iyadoo dhulkii xiran yahay hawadii la xiray jidadkii la xiray sharcigii la xiray laamiyadii la xiray caqligii la xiray wax kasta irsiqii la xiray federaalkinimadii la xiray doorashooyinkii dalku ay xiran yihiin ayay ku soo aadaysaa madashani inay waxaasoo dhan xal u noqoto inay waxaasoo dhan furfurto waxaas xiran oo dhan inay furayaashii lagu furi lahaa xalkoodii ay keento ayay madashani u taagan tahay waxaan runtii madashan ugu muhiimsan oo ilaalinayso waxay tahay ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay sharciga dastuurka dalkan u yaala oo ah dunta isku xiraysa dadka Soomaaliyeed iyo goboladooda iyo dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo maamulada ka jira dhexdiisa madashani waxay aragtaa una taagan tahay ilaalinta dastuurkaas iyo sareyntiisa iyo inaysan jirin cid ka xoog weyn oo ka weyn marka intaas oo dhan isku soo koobo runtii waxaan u maleynayaa in khudbooyinka looga bogan doono madaxdu ay halkan ka jeedin doonaan waxaan aniga guddiga qabaqaabada anoo afkiisa ku hadlaya waxaan u mahad celinayaa xisbiyada lixda ee ku bahoobay guddiga qabaqaabada ee hawsha protokolka iyo hawsha nabadgelyada iyo hawshan inay sidaan wajigan qurxoon yeelato dadkii ka soo shaqeeyay oo runtii 48 saacadood oo la soo dhaaftay aan seexan oo intaan wadada ay suurto gashay inay maanta u wada wacaan isuna keenaan waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay shaqada inta dhiman dhamaystirta waxaan rabaa inaan ugu dambeyn hadalkayga furitaanka aan ku soo gabagabeeyo madasha waxaa laga sugayaa inay xal u keento xaaladda cakaran ee Soomaaliya hadda ay ku jirto una furto itijaah iyo wado cusub ayadoo kaashanaysa dadka Soomaaliyeed waxaan idin leenahay ku soo dhawaada madasha way u furan tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u furan tahay xisbiyada siyaasadeed manaan madashani inay xisbiyada la qaysee xisbiyadu way ku kobcayaan way ku weynaanayaan magac iyo maamuus bay ku yeelanayaan markay wada jirkooda la isku geeyo maahan xisbigii kaligiis joogay wax ka weyn iyo afkaar ka weyn iyo maskax ka weyn ayaa laga dhaxlayaa marka xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira ee halkan jooga iyo kuwa kaleba waxaan ugu yeeraynaa inay qayb ka soo noqdaan madashan ganacsatada iyo odayaasha iyo kulli bulshada Soomaaliyeed oo dhanna iyadana waa ugu yeeraynaa inay taageero u muujiyaan madasha muddadii labada wiig oo ay jirtay labada toddobaad
runtii waxay qabatay oo ka qabatay daadadkii beledweyne iyo bardaale iyo goobaha kale iyo lacagtii aruuriso maalinkii dhaweeta la soo bandhigay waad arkayseen far kaliyihii marka formal dhaqdo wadajirka ayaa ka xoogan midmidka waxaan leenahay waxaasoo dhammi waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay madashu waddo u furto siyaasaddan ceegsan ee dalka Soomaaliya hadda uu ku sugan yahay ayadoo la kaashanaysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan rabaa inaan xiriiryaha ku soo dhaweeyo soo dhawaadaan idin leeyahay una dulqaata intaad howlka fadhidiin haddii maaragtay fadhigu idinka xumaado haddii qodbooyinku idinku dheeraadaan haddii waxa meeshaan aan isugu nimid waxay tahay inaan dhegaysano nuxurka madashani waxay u taagan tahay oo madaxda madasha aan ka dhegaysano waa mahadsantiin magaca aan qaadanayo layma sheegin laakiin magaca gabdhaha xildhibaanada sanatarada afkooda ku hadlaya madasha qaran ayaa waxaan leeyahay awguuriyo iyadana waa salaamaya gudoomiyaha cusub madaxweynihii hore Sheekh Shariif madaxweynihii cusbaa oo ka dambeeyay madaxweyne xasan sheekh dhammaan xildhibaanada sanatarada bahda saxaafadda gabdhaha quruxda badan aad iyo aad ayaan idin wada salaamaya salaamu calaykum mar labaad anigoo ku hadlaya magaca gabdhihi aan sheegtay da wax badan inaan sheega bay ahayd laakiin kuma aan soo talagelin magacayga un baa loo yeeray marka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta inta la wada joogo iyadoo ay tahay 6 xisbi iyo kuwo kale oo soo socda inay ku bahoobeen oo ay u kaceen maanta waddanka Soomaaliya inay badbaadiyaan inta ka soo shaqaysay iyo madaxdeennaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin inaad ka dhiibisiin waddankiinii waxaan rabaa inaan fariin yara halkan ka akhriyo oo gabar Soomaaliyeed maadaama gabdhaha Soomaaliyeed aan codkooda ku hadlayo gabar ayaa ii soo faratay fariin reer Jubbaland marka gabadhaas waxay leedahay annaga waxaan ogeyn markii xasan sheekh aan ribaynay oo aan la dagaalamayna hadda xildhibaano ahayn shacabka u hiliya baan islahayn waxaan isleeyahay shacabkii baa farmaajo marka annaga ka turjubayna farmaajo shacabka u hiliya laakiin dawladna hil bay noqotay marka gabdhihii waagii dhahayay farmaajo loo hiliyo reer Jubbaland ayaa fariin ii soo faratay oo aan been ka sheegayn marka waxaan ogeyn waagi waxa la dhahayay Itoobiya ayaa waddanka haysata xasan sheekh Itoobiya hoosta ku haysta Itoobiya inta ka jirta inta marka labadii Itoobiyada xasan sheekh aan u rinday waxa waqti Soomaaliya gacanta inay Itoobiya ku haysato marka labada Itoobiya Soomaaliya iyada cadaynaysa mid ay tahay marka gabadha Soomaaliyeed waxay leedahay waxay joogtaa Jubbooyinka magaceeda ma rabo inaan sheego sababta in minute waad ogtihiin ninkii yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo yiraahday waddanku meesha u socdo ma garanayo darashada looga dhacay miskiinta ciyaalkeeda in laga soo tarxiilo ma rabo marka gabadha waxay tiri marka gabadha waxay tiri gudoomiyihii Luuq gudoomiyihii Doolow iyo gudoomiyihii Beled Xaawo waxa looga yeeray Addis Ababa awal qalbi dhagax baa inta laga kaxeeyay oo nala ka faraan nala ka bixiyay sheekadu ahayd laakiin saddexdii gudoomiye Luuq iyo Doolow iyo Beled Xaawo intii Soomaaliya fiiriyo farmaajo intuu u yeero Muqdisho keeni lahaa oo la hadli lahaa oo halkan wax lagu xalin lahaa waxa looga yeeray Addis Ababa horta taas waa ayaan daro la saddexda mid ka mid ah xaaskiisii weeye gabadha saa u malaynayo ama walaalkeed raaliha laga ahaado waxay tiri shalay ilaa iyo daraad waa lala hadlayay oo way noolaayeen banaanka joogeen laakiin hadda waxa xaqiiqo in xabsi ku jiraan cid ilaahay abuurtay dadka damiirkii xataa annaga laftigeena waa hadaynay cid ka hadlaysana ma laha inuu intiin dawladii ay qaado ay Addis Ababa geyso iyadoo Muqdisho xataa keeni karta ilaa hebel janaba intuu ku xiran yahay waddanka horta waa sida marka xisbiyada qaran waxaan leeyahay kaliya idinkama saarno Muqdisho gobolladii Soomaaliya waxa ugu dambeysay Puntland oo xalay lacag inta laga diray lagu weeraray oo wax walba laga qasay waxaan leenahay xisbiyada qaran oo soo dhawaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Muqdisho kaliya ayay sheekadu imaan oo in gurmad loo diro maaragtay gobolladaas laga kaxeeyay madaxdoodii
ummadda islaameed oo qof kasta oo damiir lana wallaahi si niyada waxaan uga codsanayaa waddanka gacan shisheeyuu galay awal hebel baa inta jooga iyo xasan sheekh nin gadaashiisa lagu soo sawiro ninkii amiir caamir ahaa hadda wuxuu soo sawiray 3 nin oo la sii wado oo calan Itoobiya madaxweynaheennii oo xabadka kaga sawiray waxayna noqotay fashion Itoobiya waxayna noqotay wax lagu faanaba wax la dhaho Itoobiyaanka walaalaheena warsaamada sida xasan sheekh markaa ridayna dhahaynay cadawga Itoobiya dabada ku haysta goormaa walaalo noqonay oo goormaa waxay noo noqdeen Soomaaliya waxaan leeyahay indhaha kala qaada Itoobiya walaalo ma nihin haddii hadda la qabsadan dayga war haya Itoobiya walaalo waa soo dhaweeyay aad iyo aad